أولو السلام عليكم ما يمر صور المحل دارته ولا المحل كعاونا والله بشرنا عليك ها والله حربها أنا حي أكل مساج كثير وتقول تيجي طاير بكرة حيوان طاير تخاف بدي سويتاركم أيكم وافدة hadda ku dhalawalay sibta la amrida halaburka fikir cusub waa mid kamid ah halbeega lagu caabiro guulaha nolosha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland markii ugu horeysay wiil dhalinyaro ah ayaa waxa uu ka hirgeliyay fikir ganacsi oo cusub oo aan hore uga jirin Hargeysa kaasi oo ah in magaaladu ay yeelato banjar la wareega oo gaadiidka ugu tagaya goob kasta oo ay ku banjaraan marka ay la soo xiriiraan kadib Axmed Ibrahim Qalib waa mulkiilaha banjarlaha wareega waxaana uu sheegay in meel kasta oo kamid ah gudaha magaalada Hargeysa iyo waliba duleedka magaalada uu ugu tago gaadiidleyda adeegaasi u baahdo marka ay la soo hadlaan waxay ugu dhaliyay baahida Soomaaliland gawaaridooda oo aad iyo aad u badan waxa dhaafaa oo wax caawimaada iyo wax magaranaysa mas'uuliyada aan wadooyinkiisa saaray dhaxdooda ku banjaraya waxa laga yaabaa inuu gaariga kaliya banjaray 300 oo gaari xalibo waxaan ka caawiyaa waliba qaarka telefoonada haya aniga dantayda yanu tagaa on ka caawiyaa oo u tagaa halka ay taagan yihiin waxaan weydiiyaa marka ugu horeysa baahida gaariga nooc u yahay waxa ka xun taayirku inta tiro uu leeyahay marka taayirka aan hayo iyo halka uu joogo marka uu sheego oo u tagaa waan qabtaa waxa uu baahnaa ma jira inta baabuur inta kula soo xiriiray ku halkaas ku banjaro taayirkiisa weey ma jiro inta badan ma jiro waxaan sameeyaa taayirada in aan nooc kasta anigu sameesto oo sii geliyo taayiro oo meesha ku diyaarsado mar walba ها مر البيتسي مرهذا بديهين صدق براش بالله ودامه كل يلا كدب هالك يقولوا بخاطة ونتجا ونجيا ونصو قاعد كيسة ونبنشريا والله الله كاجي وديه كاجي نيك ما كل هذا واحد دوني هذه ناس كنت حالة شيء أو أن باهيها وين باهيها صومالي قبضتها حكم ذا جواري ذا حكش كيانو بنشلها وريجان هاي وحنا هاي مكان جوريجا وحيابه بدن ونيدي كتير إن شاء الله قبضونا أو كم تهاي inaan gawaarida nooc waaweyn aan soo dhigo taayiradooda oo sameeyo daawayaashooda halka ay taagan yihiin inuu gudto oo banjariyo kana caawiyo hadii la qadaro waxa baan doonayaa inaan gaariga ku sameeyo board sticker gibigiisa baa oo lambarka gaariga aan ku dhigo meheradahayga oo dhan aan lambar u sameeyo gaara lagana soo xiriiro hadii ilaahay qadaro insha Allah waxaan doonayaa inaan board sameeyo gaariga ku sameeyo meheradahayga ku sameeyo oo gobolada oo dhan gaaro hadii ilaahay qadaro xaqiisan noqoto سعيد عبد الحكيم ياسين waxa ka banjiray gaarigiisa ma uusan haysanin taayir labaad ama qalabkii uu ku furi lahaa taayirka banjiray laakiin markii dambe waxa uu sheegay inuu la soo xiriiray Axmed Ibrahim Qalib oo ah mulkiilaha banjarlaha wareega waxaana uu sheegay inuu qabtay adeegii uu baahnaa taasi bedelkeedana waxa adeegaasi ku tilmaamay inuu yahay mid wax weyn ka bedeli doona baahiyaha gaadiidleyda magaalada Hargeysa walaal Saciid Cabdi Xakiin Yaasiin baa yiraahdaa waxaan ahay ninka gaarigan taxiga uutay adigu ilaa muddo saacad ka hor buu gaarigu halkan taayirkiga banjaray anigoo qof ku ordaya nafar airport ka u socda marka hore Ilaahay maxad iska leh marka labaadna inanka banjarlaha wareega aad baan ugu mahadnaqayaa sababtoo anigoo halka ku cadilan waad aragtaa meesha cidlada oo cidnaan isku miciinin baan taagnaa inankaasuna fikradda maskaxdiisa noo maalay aad ayuu u mahadsan yahay wallahi horta walaal markii hore marka qaar inagoo xataa nafarada sidna markuu walwal baan qaban jiray moogti inkastoo imaka walwalkii hore uu naga gaabay moogti sababta markii hore imakana isku mid ah faqriin baa u dhaxeeya sababta imaka banjarla wareegaya hal meel walba wax dhamaata naga gaadhay isaga ma la hadlayna iyadoo dhalinyaro fara badan ay ka cawdaan inaanay Soomaaliland ka banaanayn fursado shaqo oo ay u hayaamaan wadamada qaaradda Yurub iyo dunida inteeda kale haddana taasi bedelkeeda waxa jira dhalinyaro la yimaada hal-abuur ama fikir cusub oo aan wadanka hore uga jirin oo uu ka mid yahay Axmed Ibrahim Qalib mulkiilaha banjarlaha wareega sagal beeldeeq Home Cable TV Hargeysa